soo soco yaa Ramadaan. Hee, aadaan kuu sugaynaa. Yaa Ramadaan waxba kama harsana oo afkay inagu soo haysaa. Horta, marnaba ma isweydiisay miisaankaaga iyo isbeddelka jirka keebaa muhiimsan? Marnaba taa ma isweydiisay? Anigu hore waan isweydiiyey mar iyo laba iyo saddexba. Horesaan ku yidhi horta dhowrka isbuuc ee soo socda waxaynu ka wada hadli doonaa waxa weeye Ramadaan markay noqoto xagga cuntada, xagga jimicsiga, xagga faytamiinada, xagga nasashada, hurdada iyo biyahaba. laakiin xagga intaynaan qaban ama xagga aynaan u dhaqaaqin horta niyadaada waxaad ku haysaa wax waliba waxay leeyihiin aasaas markaan ku leeyahay haddii aad maanta rabto inaad guri aad dhisto guriga waa inaad marka hore seeska aad taagtaa hoos guriga marka hore waa inaad ka bilowda oo aad hoos aad ka dhistaa si guriga aad doonayso aad u dhisto markay noqoto caafimaadkaaga ka shaqayntiisana waa saas oo kale oo de waa inaad aasaaskii ogsoon tahay waxaa jira 3 aasaas mid ka mida ayaynu maanta si wanaagsan uga wada hadlaynaa waan rabaa si wanaagsan inaad u fahanto markay noqoto miisaankaaga iyo isbeddelka jirkaaga keebaa kuu muhiimsan haddii niyadda waxa laga yaabaa inaad ka leedahay labaduba waa ii muhiim oo waxaan rabaa miisaankayguna inuu isbeddelo jirkayguna inuu isbeddelo good way wanaagsan tahay taasi waana kugu raacsanahay laakiin horta waxaad ogaataa labaduba way kala muhiimsan yihiin markay noqoto isbeddelka jirkaaga ayaa ka muhiimsan miisaanka ama nambarka intuu ku tusayo haddii marka 80 kiilo aad tahay waa tusaale 80 kiilo baad tahay 2 kiilo ayaad hoos aad u riday jirkaagii markay noqoto wax isbeddeli muu dhicin adigaan kuu dhiibee taasi ma ku farxad gelinaysaa ha iyo maya jawaabtu waa maya haddii miisaanka 80 kiilo aad tahay aad taagnaato laakiin jirkaagu uu isbeddel uu sameeyo taasi ma ku farxad gelinaysaa jawaabtu waa ha waayo miisaanka halkaagii hadduu taagnaado laakiin maskaxaan iyo jir ahaan iyo caafimaad ahaanba isbeddel aad samaysay aad dareemayso dee farxad baad dareemaysaa marka haddii aynu eegno miisaanka ama nambarka miisaanka horta waxyaabo badan baa sabab u noqon kara waxaad ogaataa markay noqoto kow xagga cuntada xagga biyaha xagga stresska maskaxaan iyo jir ahaanba iyo sida oo kale jimicsiga wax kastoo aad samaynaysaa saamayn bay ku keenayaan saamayn markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa in uu nambarku isbedbedelo haddii marka tusaale ahaan oo kale saaka intaad soo kacday miisaanku wuxuu ku tusay inaad 80 kiilo aad tahay beritoolaad soo kacday miisaanku wuxuu ku tusay inaad 81 kiilo aad tahay taa macnaheedu maaha inuu jirkaaga faad koray ee taa macnaheedu waxay noqon kartaa waxa weeye stresska jirkaagu inuu fara badnaa waxay noqon kartaa waxa weeye in mataqaanaaye maalinkaa markay noqoto jimicsi wax dhaqaaqaba aanaad samayn ama enerjiba aanaad gubin waxay noqon kartaa sidoo kale hurdada habeenkii aad seexatay in quality-geedu uu hooseeyey marka niyadda ku hay waxyaabo fara badan baa sabab u noqon kara inuu nambarku isbeddelo saa darteed bay mar kasta muhiim u tahay inaad xoogga aad saarto xagga isbeddelku ka dhacayo oo ah xagga jirkaaga inaad qaybtaad la socoto oo aad ka warhayso waayo nambarku ha dheeraato ama ha dhowaato uu isbeddelayaa haddii jirkaagu uu isbeddelo miisaankuna uu isbeddelayaa wax aad u baahantay inaad ka warwarto ma aha qaladaadka ugu badan ee anigu shakhsi ahaantii hore aan u sameeyey inamyaha laba aan arkayna sameeyaana waxa weeye waan rabaa inaad ka taxadirto adigu inaad miisaanka qaado maalinkii dhowr mar waxaad niyaddii ku haysaa taasi waxay abuuraysaa stress maskaxaan iyo jir ahaan su'aalo badanna waad isweydiinaysaa waxaad tiranaysaa waxaad samaynayso maxaa ka qaldan nambarku waa kan xilligan buu intaasoo i tusay habeenkii intaasoo i tusay subaxii intaasoo i tusay taasi stress bay adiga kugu furaysaa aniga hore way igu dhacday marka niyadda ku hay macno badan kuu sheegi mayso inaad miisaankaaga aad eegto dhowr mar maalinkii niyadda ka saar faa'iida kuuguma jirto stress ayuunbaad ka qaadaysaa marka mar kasta inaad xoogga saarto isbeddelka xagga jirka qaybtaas inay number 1 kuu ahaato
mar kasta haddaba si aad isbeddelkaa doonaysa aad u aragto miisaanku horta ma xumo isha waad ku hayn karta oo waad la socon kartaa laakiin number 1 xagga jidhka inaad xoogga aad saarto 4 shay ayaan u baahan inaad ka fikirto aad samayso aniga shakhsi ahaantaydu waan sameeyaa oo imaka markay noqoto xagga shaybkayga jidhka isbuucii hal mar baan eega oo waan la socdaa miisaanka markay noqoto sidoo kale inaan qof kale mataqaanaaye aniga ii dhow aan weydiiyo feedback ku idhaahda isii waan sameeyaa taa marka waxaad isku dayda waad samaysaa isbuucii xagga jidhkeena ku horreynna waa number 1 isbuucii markay noqoto hal maalin subaxii markaad soo kacdo jidhkaaga video ama sawirro iska qaad taleefankaaga ku seef garayso cid arkaysa ayaanay jirin taleefankaaga ku seef garayso subaxii markaad soo kacdo calooshaada madhan adigoo wax jimicsi aan samayn adigoo mataqaana waxaad qabatay aanay jirin adigoo wax cuntaa jidhkaagii aan gelin waxaad samaysaa meel iftiin la istaag meesha markaad istaagto waxaad u istaagtaa soo jeedkaaga dhinacaaga iyo sii jeedkaagaba saddexdaa qayboodba jidhkaaga inaad tusto kamarada oo de videoga ama sawirada aad iska qaadayso adigoo keliyaata ayuunbaa arkayo cid kaloo arkaysaa ma jirto taasi waxay kaa caawinaysaa inaad la socoto isbeddelka dhacaya isbuuc walba waayo way adagta inaad xasuusnaato siduu jidhkaagu u eekaa xalay markaad muraayadda isku eegtay ama daraad muraayadda markaad isku eegtay laakiin markaad video ama sawiro aad iska qaadayso waad arki kartaa inuu isbeddel dhacay iyo in kale isbuucii hal mar ayaad samayn kartaa maalin kasta ha samaynin stress ayaad ka qaadaysaa isbeddelna kuma muuqanayo haddaad maalin kasta sawirriyo video aad iska qaado isbuucii hal mar qaad meel iftiin la istaag dhinacaaga soo jeedkaaga iyo sii jeedkaagaba si wanaagsan kamarada uga qaad oo mataqaana video waad iska duubi kartaa hadhowna screenshot baad ka qaadan kartaa oo waad isbarbar dhigi kartaa sawirada isbuucii hore iyo sawirada isbuucan taasi waxay ku tusaysaa inaad hawshii si wanaagsan u qabatay oo isbeddel dhacay iyo in kale marka taasi waa number 2 2 xagga miisaanka markay noqoto saan ku yiri waa wanaagsantahay inaad isha iskaga hayso miisaanka laakiin xoog badan ha siinin oo mataqaanayay attention iyo focus badan ha saarin waayo stress buu kugu furayaa miisaanka waxaad samaysaa isbuucii aniga ayaan kula hadlayaa shakhsi ahaantaydu waan sameeyaa aadna taasi way ii caawisay isbuucii hal mar miisaanka ku istaag subaxii markaad soo kacdo calooshaada oo madhan adigoon waxba cunin ku istaag miisaanka intuu kuu sheego miisaanku nambarku ku tuso weeye jidhkaagu haddaad cunto oo aad miisaanka ku istaagto nambar kaleu ku tusayaa miisaanku taa niyadda ku hay marka subaxii hal mar isbuucii iska qaad miisaanka meel ku qora markaas intuu miisaanku kuu sheego isbuuca meel ku qoro si aad isbuuca ku xiga aad markaad u eegto isu barbar dhigi karto miisaankana marnaba miisaanka ku istaagin 2 mar maalinkii ama 3 mar ama isbuuci 4 mar waad ku khalkhalaysaa stressna way kugu abuuraysaa taasi hal mar isbuucii calooshaada madhan inaad ku istaagto khaasatan subaxii markaad soo kacdo saddexaad haddaba waxaad xoogga saartaa haddii aad helayso weeyaan qof familigaaga ama aad asxaab tihiin waad feedback weydiin karto feedback markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa qof aad ku odhan karto mataqaanayay siduu u egyahay jidhkaygu isbuucan miyaan isbedelay mise ismaan bedelin kama hadlayo inaad weydiiso qof kuu sheegaya ama ku odhanaya waxaad jeceshahay inaad maqasho oo mataqaana niyadda kuu dhisaya kama hadlayo anigu qof noocaasa waxaan ka hadlayaa qof aad kuugu dhow oo daacad ku ah oo runta kuu sheegaya haddaad isbedeshay iyo haddii aanaad isbedelinba taasi waxay kaa caawinaysaa maadaama adigu shakhsi ahaantaada isbuuc walba aad sawir ama video aad iska qaadayso waad isbarbar dhigayso maalin kastana aad is arkayso
mararka qaar naftu waxay ku odhanaysaa waxba isma bedelin oo shaki baa kaa gelaya laakiin qof kale indhihiisu hadday ku qabtaan ama aad feedback weydiiso aad ku tiraahdo maxay kula tahay miyaan isbedelay iyo in kale qofku jawaab ku siiyo taasi adiga aad bay ku caawinaysaa oo waxaad samaynaysay way kugu sii dhiirigelinaysaa marka taas waxay ka caawinaysaa in confuseka iyo mataqaana su-aalaha badan aad isweydiinayso maadaama maalin kasta aad is arkayso meeshii ay ka baxaan marka qof inaad weydiiso aad ku tiraahdo feedback isii wax isbedel miyaan sameeyey haa iyo maya hadday haa tahay good hadday tahay maya waxaad samaynaysa wax ka bedel oo hawsha sii wada 4 haddaba miisaankaaga iyo markay noqoto isbedelka jidhkaagu waqti bay qaadanayaan inay isbedelaan 1 isbuuc ama 2 isbuuc markaad saa samayso hamoodin inuu jidhkaagu bug noqonayo sidaad doonayso wax waliba ay noqonayaan maya ku talagal inay waqti qaadanayso ku talagal inaad samir aad u baahantay inaad yeelato oo keliya aad u baahantay inaad xoogga saarto waxaad u baahan tahay maalin kasta inaad qabato hadday noqoto hurdadii hadday noqoto cuntadii hadday noqoto jimicsi wax kastood u baahan tahay maalinka inaad xoogga saarto isbuuciina saan ku yidhi miisaankaad eegto qof feedback aad weydiiso isoo kalena aad shaybkaaga ama jidhkaaga isbeddelka dhacaya aad la socoto haddii la yidhaahdo waxaan rajaynayaa inaad bointigan aad iyo aad u fahantay waxaa inoo ballanaa fideoga xiga peace out